السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ku xiran janaalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago gudoomiyaha gobolka Minnesota Mark DeWine iyo haweeneyda qaabilsan waaxda gobolka Ohio u qaabilsan caruurta iyo dhalinyarada Kara Wente ayaa shalay shir jaraa'id qabtay. Waxa ay ka hadleen daykeerada ku yaala gobolka Minnesota. Imisa ayaa musuqmaasuq lagu arkay oo la xiray, imisa lacaga dheeraad ah la siiyay, iyo waliba gudoomiyaha gobolka Minnesota oo Soomaalida ka difaacay musuqmaasuqa iyaga kaligood lagu eedeynayo. Waxaana sidoo kale shacabka uga digay gaar ahaan dadka daykeerada iska leh, dadkan kaamarooyinka la wareegaya in aysan xarumaha daykeerada aysan u furin. Arrimahaasi waan idinla wadaagayaa. Magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis maanta haddana mar kale waxaa howlgal ka bilaabaya 2,000 oo ciidamada ICE isugu jira, kuwa ciidamada xuduudaha ilaaliya iyo sidoo kalena qaybta wasaaradda amniga gudaha u qaabilsan baaritaanada musuqmaasuqa la xiriira. Howlgallo kuwii hore ka ballaaran ayaa magaalooyinkaasi maanta ka bilowday. Jamaal Cusmaan oo ka mid ah dowladda hoose ee Minneapolis oo shalay loo doortay madaxweyne ku-xigeenka dowladda hoose ee Minneapolisna waan idinla wadaagayaa, balse marka hore soo dhawaada. Labadii toddobaad ee ugu dambeysay waxaan ogeyn kadib markii muuqaalkii wiilkii caddaanka ee cunsuriga ahaa Nick Charlie uu ka duubay daykeero ku yaala gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis oo intooda badan ay Soomaali leedahay, kuna eedeeyay inay musuqmaasuq sameynayaan, walow markii dambe la ogaaday in wax musuqmaasuqa aysan ka jirin. Isagana hadda laga yaababa in arrintaasi lagu dacweeyo maadaama uu dad fara badan ganacsiyadoodii saameyn uu ku yeeshay. Waa tii dowladda federaalku gabi ahaanba 30kii bishii lasoo dhaafay ee December lacagihii ka joojisay guud ahaan waddanka oo tiri cadeymo ayaan u baahannahay. Haddaba shalay waxaa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha gobolka Ohio Mark DeWine iyo haweeneyda gobolka Ohio u qaabilsan waaxda caruurta iyo dhalinyarada oo la yiraahdo Kara Wente. Waxaana ay shirkooda jaraa'id ku saabsanaa bal shacabka inay ku wargeliyaan oo ay ogaadaan in musuqmaasuq uu ka jira daykeerada gobolka Ohio iyo in uusan ka jirin. waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolka uu sheegay in waraaq ay u direen wasaaradda caafimaadka oo lacagaha daykeerada siin jirtay 31 bisha, walibana ay uga mahad celiyeen in sida ay doonayaan in musuqmaasuqa ay ula dagaalamaan, laakiin welina aysan jawaab ka helin in qaabka ay musuqmaasuqa ula dagaalamaan iyo sidoo kale in musuqmaasuqa uusan ka jirin daykeerada gobolka Ohio ay u sheegeen. Haddaba shalay gudoomiyaha gobolku waxa uu sheegay in 5,200 oo daykeeraha ay ku yaaleen guud ahaan gobolka Minnesota. Waxaana uu sheegay in musuqmaasuq 12% ah ay ku arkeen oo 0.2% haddii la fiiriyo. waxaana sidoo kale uu sheegay in ay website-ka ay leedahay waaxda gobolka Minnesota u qaabilsan caruurta iyo waliba dhalinyarada iyo teleefankoodaba dadku ay kala soo xiriiri karaan haddii wax musuqmaasuqa ay arkaan. Waxa uu sheegay in 61 goobood ay jiraan lacaga dheeri ah oo 2 milyan ah oo gobolku uu siiyey, markii la ogaadana xarumahaasi ay dib u soo celiyeen lacagahaasi dheeraadka ah oo gobolku siiyey. waxaana sidoo kale uu sheegay in 124 cabashooyin ah amaba dad musuqmaasuq ka shakisan ay la soo xiriireen gobolka sanadkii la soo dhaafay ee 2025. waxa uu sidoo kale sheegay in 12 xarumood la xiray. waxaana uu xaqiijiyay in 30 xarumood ay heleen si sax ah inay u shaqeynayaan, 21 ka midana weli review oo ku socdo oo dib u eegis lagu sameynayo. waxa uu yiri 10,000 oo waxaan sameynaa booqasho aan horey loogu sheegin goobahaasi daykeerada ah oo sanadkii la soo dhaafay lagu tagay. waxyaabaha la eegayay waxaa ka mid ah in wax musuqmaasuqa ay jiraan, amaba sidoo kale waxaa la eegayaa xaaladaha caafimaad ee goobahaasi. caruurtu ma tahay meel aysan wax cudurraha ka qaadi karin, safetygoodana waa siday dhinaca badqabkooda. gabi ahaanba waxyaabahaasi ayaan eegnaa ayuu yiri. marka waxa uu sheegay in aysan jirin wax musuqmaasuq ballaarana oo ay heleen. marka waxaa la weydiiyey su'aal la xiriirtay sababta Soomaalida oo kaliya daykeerada leh loo bartilmaameedsanayo oo musuqmaasuq loogu eedeynayo oo Soomaalida oo kaliya musuqmaasuqan dusha looga saarayo. waxa uu yiri laba dhinac haddii aan ka fiirino musuqmaasuqa markii aan baaraynay waxaan aragnay dad aan Soomaali ahayn
oo musuqmaasuqa ku kacaya waxaan sidoo kale aragnay ayuu yiri dad Soomaali ah oo iyaguna asal ahaan Soomaali ka soo jeeda oo iyaguna musuqmaasuqa ku lug leh laakiin wuxuu yiri anaga shaqadeena ma ahan qofka musuqmaasuqa sameynaya meesha uu ka soo jeedo laakiin muhiimadeena waxa ay tahay in aan musuqmaasuqa aan la dagaalamo isla markaana aan ogaano waxyaabaha sababaya iyo sidoo kalena meelaha nala ka soo gali karo oo aan ka nugulnahay sidaas darteed waxa uu tusaale ahaan u soo qaatay waalidku marka uu caruurtiisa geynayo goobta daycare-ka waxaa jira bin loo baahan yahay inuu geliyo oo sawir ka qaadayo waxa uu yiri waxaan ogaanay in waalidiinta amaba dadka mas'uulka ka ah caruurta in oo kaliya ay binkaas ugu tala galeen waxana lacagta aan ku bixinaa ayuu yiri ilmuhu marka ay tagaan goobta daycare-ka laakiin inaad inta ka diiwaan geliso ilmahaada ay gurigaada ku joogaan lacag kuma helaysid marka waxaan ogaanay yiri goobaha daycare-da in waalidiintu binkii ay siinayeen arintaasi oo qalad ah musuqmaasuq bilowgiisana ah sidaas darteed waxa haweeneyda u qaabilsan gobolka Minnesota waaxda caruurta iyo dhalinyarada oo Cara Winter la yiraahdo ay sheegtay sanadkii la soo dhaafay inay bedeleen 7500 oo bin oo la ogaaday waalidiintu dadka daycare-da iskale inay la wadaageen marka ilmihiyoon imaan oo guriga jooga waxa inta la soo waca leeyahay binkii ii gali maanta inaan jooga ka dhig arintaasi marka waxyaabaha musuqmaasuqa sababi karto ayay ka mid tahay yiri sidaas darteed waxa uu sheegay muhiimaddu waxay tahay inaan focus ka saarno musuqmaasuqa nafsad ahaantiisa laakiin waxa uu yiri ma jirto sabab hal bulsho oo kaliya in dusha laga saaro musuqmaasuq waxana uu xaqiijiyay in arintaasi musuqmaasuq ay tahay mid aan la dagaalamayno Soomaalidu waxa uu yiri muddo fara badan ayay wadankan joogeen isla markaana sanado ka hor ay yimaadeen intooda badan waa muwaadiniin ganacsina waa ay leeyihiin marka in bulshadaasi oo kaliya dusha laga saaro musuqmaasuq ma ahan waxa uu yiri waxaan u baahanahay problemka inaan diirada saarno oo musuqmaasuq ah inagoo wada jirnana oo wada jir ahna aan ka fikirno sidii aan u joojin lahayn musuqmaasuqaas arintaasi ayaa waxa ay tahay waxyaabaha loo baahan yahay inaan sameeyno haddaba gudoomiyaha gobolka Ohio arintaasi uu ku difaacay dadka Soomaalida waxa uu yiri There's two ways of saying it and they're both true. What we found in fraud in Ohio has certainly included people who are not Somalians. Has it also included some people who have a Somali background? Yes. So both things are true. So, you know, we don't care who's committing the fraud. We go after that, do whatever we can to stop it. So I think that, you know, we need to, in this discussion, I think, focus on fraud itself and what we're doing. And look, we always evolve as we see what we think is causing fraud or we see some vulnerabilities. You know, the easiest example is the PIN example. There was no reason that many of the facilities had the PINs. Now, as Cara said, we can't say that they were committing fraud, but they had no business with those PINs anyway. And so going to do what you can to eliminate that. So the vast majority of Somalians have been here for a long time. I mean, this influx that came for most of Somalians for a number of years ago. Many of them are citizens. Many of them run businesses. So, you know, we need to just not fixate on any population. We need to fixate on the problem. We need to fixate on the fraud. We need to focus on what we can do collectively, all of us together, to stop fraud in Ohio or stop fraud in any other state. That's what we need to do. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Ohio waxa uu sidoo kale ka hadlay dadkan YouTuberada oo kaamarooyinka la wareegayo Minnesota tagay haddana Ohio joogo oo dhahaya daycare-da iyo musuqmaasuqooda ayaan baarayna waxa uu yiri in sabab ma jirto dhahay qof kaamara wato in inta uu ku yimaado albaabka ku soo garaaco aad uga furayso waxa uu yiri ma ahan inaad ka furto dhahay hadii uu ku soo garaaco waana sida saxda ah maxaa yeelay wuxuu yiri halkaas caruur ayaa ku jirta caruurtaasina mas'uuliyadda gobolka ayay ka saaran tahay marka wuxuu yiri waxa loo ogolaan karaa waalidka ama qofka mas'uulka ka ah ama dadka volunteerska oo meesha ka shaqeynayo oo waliba background check lagu soo sameeyay dadkaas maxaa yeelay caruur ayaa meesha joogta mas'uuliyadana anaga dusha naga saaran tahay marka ma ahan uu yiri in qof iska socdo inta uu soo garaaco uu yiraahdo musuqmaasuq ayaan baaraya ee albaabka iga fur halkan lama joogo caruur ma joogto arintaas wuxuu yiri waa qalad mana ahan in arintaasi ay dadku ay sameeyaan wuxuu yiri sabab ayaan u sameeynaa 10,000
oo baaritaanka aan ku samaynayno goobahaasi waxana uu sheegay in ay hadda mar kastaba aan raadinayno wadooyin cusub oo musuqmaasuqa aan kula dagaalano shacabkana fikradahooda waan soo dhawaynaynaa hadda sanadka cusub xitaa waxaana soo gaaro yiri cabashooyin fara badan laakiin cabasho kasta ma ahan in ay sax tahay oo mid musuqmaasuqa laakiin mar kastaba waan soo dhawaynaynaa yiri in dadku ay noo soo gudbiyaan cabashooyinkooda website-ka iyo telefoonka ay noogu soo gudbiyaan laakiin dadka wuxuu yiri sababta aan shirkan jaraa'id u qabanay waxay tahay in aan community-ga u sheegno qof kasta in daykeerada aan la iska gali karin oo qof iska socdo camera wato intuu yimaado uu yiraahdo ma gali karo waa run ma gali kartid maxaa yeelay goobta caruur ayaa ku jirta amarna uma haysatid inaad gasho waalid ma tiid ilmaha mas'uulka ma tiid dadkii volunteerka oo meesha ka shaqaynayeen ma tiid isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri gudoomiyaha gobolka Ohio Mark DeWine. One of the reasons we're doing this press conference is to try to get out to the general public what the facts are. And you know, the facts are that there's a reason that citizens who are going up and trying to video something and trying to see what's going on inside the doors aren't being allowed in. We do 10,000 inspections a year, and we do more when we get more complaints, But the public needs to understand if it's your child in there, you don't want a random person to be able to knock on that door and get in. They have to have a reason to get in. They have to be a parent to get in. They have to be a guardian. They have to be someone who's responsible for that child. Or they have to be a volunteer who's already been cleared with all kinds of background things. So we're careful with our kids in Ohio. And I think people should expect us to be, and should demand that we do that. So there shouldn't be a shock when you see something on social media and someone is going, I can't get into this place. No one will let me in. Well, hell no. No one should let them in. You should let them in. Fraud does occur. And if we think fraud doesn't occur, we're wrong. It does occur. And our job is to do everything that we can and constantly look for new ways to stop fraud. And we welcome, let me say it very clearly, and you can see we've always welcomed tips. And doesn't mean every tip plays out, but if somebody feels, hey, there's something wrong going on in that place, there's some fraud going on, we want their tips. We've always wanted their tips. We appreciate the fact. We welcome those. So we want the public's involvement. But going to a daycare center, whether it's run by Somalians or whoever it's run, you're not going to expect to get in unless you've got a reason to get in. dhinaca kale reer Minnesota waa St. Paul iyo Minneapolis Buckle Up isdiyaariya 2,000 oo ciidamo ICE ay ka mid yihiin ciidamada xuduudaha ilaaliya CBP-da ay ka mid yihiin iyo waaxda sidoo kale u qaabilsan wasaaradda amniga gudaha dhinaca baaritaanada musuqmaasuqa ayaa Minnesota la keenay xitaa shalay waxaan arkay wasaaradda amniga gudaha ay dhahayso Hotel Hampton in la yiraahdo oo Hilton oo company-gaas uu leeyahay in ay iska soo dalbadeen ama reservation ay ka sameysteen kadibna laga kansalay walow markii dambe hotelku raali gelin uu ka bixiyay hoteeladu waxay ka baqayaan dadka kale oo macaamiisha hotelku u jiifa maadaama ICE marka la ogaado in hotelka joogaan muddooyinkii dambe la tagayo mudaharaad lagu hor sameeynayo hoonka lagu yeerinayo frimbi lagu yeerinayo sidaas ayay ka baqayeen marka hadda waxa la leeyahay 2,000 ayaa lagu soo daadiyay magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul xilliga 3 o'clock oo 9 saac habeenimo iyo inta badan ay baaritaanada ay bilaabaan marka hadda waxaan arkay isla saakaba waa ay bilaabeen Cedar waxa lagu arkaya ciidamo ICE marka ciidamada ICE waxay yiraahdeen howlgalkii December 2deedii ay bilaabeen oo ilaa iyo Christmaskii 25kii socday 1,000 qof ka badan ayay ku soo qabteen oo dad dambiilayaal iyo kuwa wadanka sharci la'aan ku joogaya shalay wasiirka amniga gudaha waxay barteeda X ay soo gelisay in 12,000 oo kamid ah ciidamada ICE kuwa dhawaan la shaqaaleysiiyay in guud ahaan gobolada Mareykanka la kala geeyay waxayna tiri sharcigii the big beautiful bill oo madaxweyne Trump uu saxeexay bishii July 4 sanadkii hore in uu u suura geliyay in 220% ay kor u kacdo waxqabadka ciidamada ICE marka ICE hadda meel kasta oo Mareykanka ah ay joogaan howlgaladana waa ay ka wadaan hal laga digtoonaado gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo shalay ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka xilka gudoomiyaha gobolka doorashada dhacaysa dhamaadka sanadkan ayaa la weydiiyay su'aal ahayd maanta mar uu shir jaraa'id qabtay cadaadis dhinaca Washington kaaga yimid oo arrimahan musuqmaasuqa la xiriira darteed miyaad tartanka doorashada uga hartay mayuu yiri anigu go'aan aan shakhsiyan gaaray ayay ahayd arrintaasi waxa uu sidoo kale ka hadlay gudoomiyaha gobolka Minnesota 2,000 oo ciidamada ICE iyo kuwa ciidamada xuduudaha ilaaliya iyo kuwa wasaaradda amniga gudaha oo Minnesota ay dawladdu keentay waxana uu yiri maxay ka soo dooneen ma inagay nala shaqeynayaan waxana uu sheegay
in dagaal dhinaca Washington uga imaanaya ay kula jiraan weerarkaas inuu yahay mid joogta ah oo lagu hayo. Waxa uu sheegay maadaama hadda uusan siyaasad ka fikiraynin in uu u dagaalami doono jiritaanka gobolka Minnesota iyo weliba dadka reer Minnesota. Waxaana uu sheegay in arrintan ay tahay mid aan gabi ahaanba loo dul qaadan karin in ciidamo intaas la-eg loo soo diro magaalooyinka Minneapolis iyo weliba St. Paul. Isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi No, I think it's a personal decision. It's effectiveness. I never took this job to be governor. I took the job to pass things like paid family medical leave. I don't think any governor in history has had to fight a war against the federal government every single day. And I'm going to fight this without having to spend any time worrying about the politics of this. I'm going to fight it, making sure that Minnesotans are cared for. I'm going to fight it by doing the respect that we should have for rule of law. So I just think all of you see this. It is just going to be relentless. Why 2,000 folks? What are they coming? Do they want to coordinate with us? I mean, we are under assault like no other time in our state's history because of a petty, vile administration that doesn't care about the well-being of Minnesotans. My job is to protect the well-being of Minnesotans. So the good news on this is Republicans assured they're going to lose the governor's race dramatically. ugu dambeyntii Jamaal Cusmaan oo kamid ah dowladda hoose lagana soo doortay degmada lixaad oo doorashadii November 4 dhacday ku guuleystay ayaa shalay la dhaariyay. Shalay 13 xubnood ee ka tirsan dowladda hoose ee Minneapolis iyo weliba maayarkaba shalay ayaa la dhaariyay oo xaflad la qabtay xitaa Soomaaliya ayaa kasoo qayb gashay dhaanta ayaa lagu ciyaaray. Marka waxaa markii xubnaha la dhaariyay kadib oo Jamaal aad arkaysaan waraaqda shahaadadiisii markii uu saxeexay kadib waxa ay yeesheen kulan waxayna dooranayeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Marka Jamaal Cusmaan ayaa waxaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka xubnaha dowladda hoose ee Minneapolis waana markii ugu horeysay qof Soomaaliya oo madaxweyne ku-xigeen ka noqdo. Isaga oo kaliya ayaa isa soo sharaxay, cod ayaa la geliyay 13 xubnood 7 kamid ah ayaa u codeeyay yes dhahay, 6na waa ay diiday. sidaas darteed ayaa madaxweyne ku-xigeen uu ku noqday. Waatan markii codka ay xubnaha dowladda hoose u qaadayeen madaxweyne ku-xigeenka oo uu ku guuleysanayo weliba loo sacbiyay. Hambaliyo ayaa leeyahay saaxiibkay Jamaal in xilkaas lagu dhiibay waan hubaa weliba in aad ka soo bixi karto. Are there any further nominations to the office of Vice President for City Council? Are there any further nominations? Seeing none, the period for nominations is now closed. And again, council members, I will remind you that we will proceed to vote on the nominations in the order that they have submitted. We will begin with a vote on the nomination of Councilmember Osman, representing Ward 6, to the office of Vice President. The clerk will call the roll. Councilmember Payne. Aye. Wansley. Aye. Rainville. No. Vita. No. Warren. No. Osman. Aye. Schaefer. Nay. Stevenson. Aye. Chavez. Aye. Chuktai. Aye. Whiting. No. Chowdhury. Aye. Palmisano. No. There are 7 ayes and 6 nays. That motion passes. Councilmember Osman has been elected Vice President. Congratulations. aad iyo aad u mahadsantihiin nabadgelyo.